والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدان كسو هذلني إن عشرة الذي هراء أنا قصو هذلني محوية بريس يو إن تاريخ ذا بريس هذا أنا واحد قال لي دون cultural practice of rice أما إن خاب كلا بيرت أما خاب بيرشة بريس بريس أنت بدون حلقو بيرت دولك lowland كاليرا أما دولك هوسي كوس حوبة هي كمية بدن وبيع wax badan oo biyaha u baahan yahay marka si marka ay meesha biyo degga sababaha loogu beeraya waxa waaye waa si uu u helo waraab ku filan koos inta badan waxa waaye biyaha ayuu ku dhex baxaa waxa waaye waa geed biyood aw marka waxyaaba kale u baahan yahay waxa waaye soilkiisu inuu yahay soil biyaha celinaysa ama carro biyaha celinaysa sida carradan loo yaqaano clay soil ayuu u baahan yahay loam soil kana waa lagu beeraa laakiin carrada ugu fiican oo uu ka helayo macnaha environmentkiisa uu ka helayo waxa waaye waa clay soilka iyo nafaqana waa inay leedahay carradaas oo carradaas geedka because waxyaabaha loo siiyay supplementary elementska waxa waaye geedkan wuxuu u baahan yahay nafaqo badan meeshaas waa inay availability ku ahaato weed control oo la sameeyo weed control ama laga ilaaliyo inay caws ka dhex baxo because geedkan waxa waaye waa susceptible aad u nugul yahay marka taasna waa taas ayadoo la beerayo waa kana muuqaalkiisii oo biyihii ku dhex jira oo biyihii ka dhex baxay waxyaabaha oo aan soo sheegnay muuqaal iyagoo ah sawir oo caddaynaya inuu geedkan ka dhex baxo meelahaas waa tanaa marka iyadoo la package garaynayo iyadoo la gurayo waxyaabihii dhan marka inay intaas soo idinku filaato good marka uses of maize-ka aan dhahay of rice-ka maxay yihiin rice-ka mostly waxaa loo isticmaalaa in la karkariyo isagoo karkarsan la cuno because dadkaas oo dhaqanka u leh culture-ka kuma isticmaalaan sida Soomaalida ama u isticmaasho ama dadkan kale oo Afrika ku nool ay isticmaalaan oo in bahalkan la suugo lagu kariyo uma isticmaalaan sidiisa ayaa loo kariyaa isagoo boiler gareysan oo biyo karkarsan lagu shubayo isagoo cad bayna cunaan marka waxa kale loo sameeyaa dried lagu sameeyaa sida looga isticmaalo adduunka kale isagoo baalka la yiraahdo inta biyihii la shiilay sida ay hadda Soomaalidu isticmaasho kale waxa kale lagu sameeyaa greenies of rice ka ayaa la boiler gareynaya marka sidoo kale waxa loo isticmaali karaa in laga dhigo cabitaanada kulul ama beerka ayaa laga sameeyaa iyo strogiisana waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo warqadaha macnaha uses badan oo leeyahay sidoo kale waxaa laga sameyn karaa bahashan la yiraahdo woofska ayaa loo isticmaalaa marka muuqaalkan waxaad ka arkaysaa culturally sida loo isticmaalo bahalkan waxaa loo isticmaalaa isagoo sidiisii ah oo biyo karkarsan lagu kariyey banaanka lasoo dhigo cad marka sida cultural dadka ay bayrtaa u cunaan waa nooca kale marka waxa waaye waxaan rajaynaynaa inaad fahanteen culture-kiisa waa kana isagoo jawaankiisa ku jira isagoo laga soo saaray iyadoo la muujinayo marka waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'iidaysan doontiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كحرنا وبرا تي في سيد وبقت برشة علمي بيرها